عقاش iyo dhalinyarada waxgaradka degmadaasi Wajaale oo qaar ka mid warbaahinta la hadlayay si weyn u soo dhaweeyay maayarka cusub ee loo soo magacaabay degmadaasi Tog Wajaale maayarkan oo ahaa maayarada ugu muddada dheer ee soo maray degmadaasi Tog Wajaale dhalinyaradan iyo cuqaashan oo ka hadlaya ayaa waxa ka mid ah hadaladoodii halkan maanta waxaan si weyn ugu soo dhaweynaynaa oo aan gacmo furan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub gudoomiyaha Xaashi oo horena u ahaan jiray gudoomiyihii hore ee Wajaale haatan mar labaad dib loogu soo magacaabay waxaan markaa si weyn ugu hambalyeeynaa inuu marleyto wax ka qaban doono hadii ay tahay xagga xisbiga kulmiye oo tayadiisa kor u soo qaadi doono hadii ay tahay xagga waxtarka magaalada ama tayeynta oo horaba hadii ay dariiqiyo tahay iyo hadii ay danguyo kala tahay ba horaba wax uga taray markaa wax leenahay soo dhawow Xaashi soo dhawow gudoomiyaha magaalada cusub in badanna wax ka soo qabtay magaalada waxaan ugu hambalyeeynaa inuu imikana in badan qaban doono waxaan aad soo dhaweynaa maayarkii hore Xaashi oo magaalada wax weyn ka qabtay haday tahay xagga wadooyinka haday tahay xagga caafimaadka si xoog ah ayuu shaqeynayay maayarkii hore ugu horeyn aanu mahadnaqanaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si degdeg ah ugu soo jawaabay baaqii baryahan ka soo yeedhiyay waxgaradka ganacsatada iyo dhalinyarada degmada Wajaale ee ku aadanaa in degmadani hesho isbedelkiina uu yimid waxaanu leenahay gudoomiyaha cusubna waxa keenay waxa weeyaan waa wax qabad ku shalay qabtay cid walba degmada wax ka qabatana sidoo Xaashi u soo noqonaysaa waxa kale oo aan leeyahay waa bariye saacma qari karaan leeyahay maayarka cusub ee degmada Wajaale Xaashi Maxamuud Cabdi oo wax qabadkiisa oo si muuqdo oo ka qayb qaatay degmada waan sii sugotiina maayarkii hore ee Adashiine maayar Xaashi nooc ku soo dhaw degmada Wajaale wax qabadkaagii iyo sida aad uga qayb qaadatay isku xirkii degmada aad bay kugu helanay aanan soo dhaweynaa gudoomiyaha cusub ee lagu soo xiriyay mar labaad degmada Wajaale Xaashi Maxamuud Cabdi isagoo ah gudoomiyaha hal kareena ahna gudoomiye u qalma hawlaha loo idmaday gudoomiyahaasi marka xaqiiqada laga hadlayo waa gudoomiyaha kaliya ee Wajaale ugu damqada sida ay tahay waa ninka kaliya ay ka qaantay hab maamulka nimankan hore ee meesha hayay ee laga bedelay oo ahaa iyaguna maamulka ugu jiricsanaya soo maray way xidheen magaalada marka xaqiiqada laga hadlo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo runtii baaqi aan u dirnay bulshooyinka reer Wajaale ay degdeg ugu soo jawaabay waxaan kale oo mahad celinaa waan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub ee degmada Wajaale Xaashi Maxamuud Cabdi oo runtii halii degmada Wajaale ku suntan dadweynaha reer Wajaale ee sharaftiya karaamada leh ay u hayaan taageero iyo miisaanay waxaan aad ugu mahad celinayaa barasaaka gobolka Gabiley oo runtii isaguna nin dhalinyaro firfircoon waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Wajaale inay si mug iyo miisaan ay u soo dhaweeyaan nala shaqeeyaan dadweynaha Xaashi Maxamed Jaamac egas maayarkii hore Xaashi Maxamuud Cabdi oo ahaa egas maayarkii hore wax qabadkiisana ay ku suntan tahay degmada Wajaale horena uga baranay hal adayg iyo hawlkarnimo si kastaba ha ahaatee maayarkan cusub ee loo soo magacaabay degmada Wajaale mudane Xaashi Maxamuud Cabdi ayaa waxaa xusuus mudan in muddadii uu joogay degmadaasi Wajaale wax qabad taaban karo uu ka fuliyay isla degmadaasi waxaana hubaal inuu ka soo bixi doono xilka cusub ee loo soo magacaabay Khadar Cabdi Cabdilaahi warbaahinta madaxa bannaan degmada Wajaale.